محمد حسن عيد مبارك. عيد مبارك يا أحمد. وان سلام يا دمان dadka ay nadageysanaya meel kasta dunida ka joogan iyo hoyga dalka in Holland. أحمد والله وعيد مبارك كل عام وأنتم بخير. دمان أمة الصومالية iyo دمان caalamka islaamka kuba meel kasta joogan hambalyo ayaan leenahay Axmed. halkani waa hoyga Soomaalida ee Holland oo aad ka dhageysan kartaan barta internetka ee cinwaankeedu yahay dalmar.org. waxaad kaloo naga maqli kartaan mawjadaha raadiyoga ee FM-ta 99.4 iyo 106.8 megahertz. weli waxaa inoo socda barnaamijkeennii hambalyada iyo salaamaha ciidda ee hoyga Soomaalida ee Holland. waxaa dhageystayaal khadka telefoonka inoogu jira Maxamed Xasan Bardax oo ah wariye madax bannaan oo degan waqooyiga Ameerika. Bardax ayaa jeclaystay in uu inagala soo qayb galo barnaamijkeena maanta. Bardax, ciid wanaagsan. salaanta iyo tahniyadu halkaas ayay kugu soo gaadheen. waxaa tahay nin suxufi ah oo socodkaaguna kolley uu badan yahay. halkeed run ahaan degan tahay oo si rasmi ah aad ugu nooshahay? magaalada Windsor, Ontario, oo ku dhegan xadka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Michigan. marka haddii aan ka hadlo magaalada Windsor, waa magaalada ay ugu badan yihiin ayaan odhan karnaa muslimiinta degan waddanka Canada oo dhan. magaalada oo ay qiyaastii degan yihiin tirada guud ee dadka degan Windsor waxaa lagu qiyaasaa 250,000, iyada oo ay aqlabiyadu ay yihiin dadka muslimiinta. maayarka magaalada ayaa isaguna ka soo jeeda waddanada carabta sida gobolka Lebanon, inkastoo isagu masiix yahay. haddaba maanta waxaa si weyn looga ciiday dhammaan magaalada. waxaa ku yaala 3 masaajid oo aad u waaweyn oo kala la yiraahdo Masjid al-Huda, Masjid al-Hijra iyo Masjid al-Nur. mar aan maanta haddaba ku soo tukaday salaadii hore ciidda, qaybtii hore ee dhacday 8:00 subaxnimo, waa saacadda North America amba Canada, ayaa waxaa aan kula tukaday kumaan kun muslimiin ah oo iskugu jira Carab, Hindi, Pakistan iyo Soomaali intaba. waxaa kale nagala soo qayb galay munaasabadda ciidda maayarka magaalada oo magaciisa la yiraahdo Eddie Francis iyo 2 ka tirsan xildhibaanada uga soo baxa federaalka magaalada Windsor oo kala yiraahdo Brent Maas iyo John Comarty. dhinaca kale ee xadka Mareykanka gobolka Michigan, mar aan isagana tallaabay oon kala qayb galay salaadii 11:00 subaxnimo iyadana lagu tukanayo ciidda, ayaa waxaan tegey masjid ku yaala Hamtramck oo ah meesha ay ugu badan yihiin gaar ahaan jaaliyadda Yamanta ee degan North America. haddii aan ka yar sheekeeyo dhammaan magaalada Michigan, qaybta waxaa la odhan karaa waa magaalada ugu badan yihiin carabta dunida carabta ku nool North America oo dhan, iyadoo lagu qiyaaso ilaa 1 milyan wax ku dhow inay ku nool yihiin. masaajid waaweyn ay ku leeyihiin sida masjid magaalada Dearborn, magaalada Hamtramck iyo dhowr magaalo oo kale. dhammaan sidaas ayaa looga ciiday magaalooyinka. dhinaca kale mar aan khadka kula xiriiray wariyaha noo jooga magaalada Toronto, Xasan Ducaale, ayaa isna noo sheegay inay Soomaalida degan Toronto si weyn looga ciiday, gaar ahaan masjidka Khalid bin Walid iyo masjidka Abu Hurayra. waa hagaag Maxamed Xasan. waxaad iiga warantay guud ahaan Canada iyo waqooyiga Ameerika, waana si wanaagsan. magaalada aad degan tahay sidee looga ciiday halka aad degan tahay oo Windsor iigu sheegtay? marka labaadna bulshada Soomaalida ah ee degan halkaas ma ka muuqatay farxad wejiyadooda? sideenay ahayd shucuurtoodu? wallahi Axmed, dad badan ayaa iskugu soo baxay, inkasta oo Soomaalida degan Windsor laga badan yahay marka la eego gobolada kale sida Ottawa, Toronto
iyo gobolada Edmonton haddana Soomaalida degan Windsor qiyaastii waxa lagu qiyaasaa ilaa 2,000 oo qof dhammaan waxaad ku arkaysaa masaajid kasta oo ay Soomaalidu ay ummadda muslimiintu ka tukato Soomaali fara badan oo waliba xiran hiddihiin Soomaalida gaar ahaan masjidka aan ku tukanayo maanta oo inkastoo maanta miskiin lagu tukan laakiin lagu tukanayo barxad weyn oo la kireystay oo lagu ciyaaraha hockeyga oo la yiraahdo Micmac Park oo ay ku tukanayeen dad tireedu gaaraysa ilaa 10,000 oo qof waxaan arkayay rag Soomaali oo xiran bacaawiso cimaamado bakoorado sidii dhaqanka u ahayd dadkeenii Soomaaliyeed dumarka oo ka arkaysa iyagoo xiran duruucdii iyo xijaabkii ay dadka Soomaalidu xiranayeen carruurta ayaa si wanaagsan loogu labisay waxaad xasuusanaysaa markii aynu ku ciidi jirnay wadanadeennii hooyo oo aad leedahay waaba la mid Axmed soo gabagabaynayaa maadaama aan ku jirno maalintii ugu weyneed dunida muslimka oo loo yaqaano Ciid al-Adha kullu caam wa antum bikhayr dhammaan muslimiinta degan caalamka oo dhan ayaan leenahay gaar ahaan hoyga Soomaalida ee Holland waana mahadsantiin dhammaantiin Axmed iyo wariyaasha kale idaacada la daadihinaya wariye Maxamed Xasan Windsor Ontario aad ayaad u mahadsan tahay Bardax dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Xasan Bardax oo jooga waqooyiga Ameerika oo inagala qayb galay barnaamijkeena tahniyada iyo salaamaha ciida oo aan wax ka weydiinaynay munaasabadda ciida sidii bulshooyinka Soomaalidu ay uga xuseen maalinta weyn ee ciida